والله أول مرة أنا وحنا هاي قف إسقيس كصوب قارهان بيش عص أيام وحنا مهرد أيام ما كلها صندوق ديار أيام السنين جرتي صندوق داس وحنا كوجد إنجري بغاش أيام كوجد إنجري صرفنا قبنا صرف أيهات قبنا بغاش أيهات الحمد لله رب العالمين أنا وحنا إلهي سيء سجال عرورها يا إلهي سيء أفر ويل يا مارتي شن قبل يا إلهي سيء مارتي الحمد لله رب العالمين ilmahaas qaar ka mid ah iskoolaadka dugsiga sare dhigtaan qaar ka mid ah alxamdulillaah rabbil caalamiin jaamacado qaar dugsiyada quraanka ay dhigtaan alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan ku maareyn jiray nolosheena iyo ilmahaas maartay fiigooda maartay alxamdulillaah mahradeedaas ilmaha waxa jiray labo oo ugu roroona oo ah maartay Maryam Umar Xaaji Maxamed iyo Bashiir Umar Xaaji Maxamed labadaas oo maartay igu caawini jiray shaqada maadaama aan ahay qof oo disable ah ama qof naaf aan ahay oo aan xoog lahayn alxamdulillaah labadoodaas iskool dhigan jireen labadooda mid wuxuu dhigan jiray Bashiir Umar Xaaji wuxuu dhigan jiray iskoolka almasal waa bari ayuu dhigan jiray oo maamulaha uu ka yahay ustaad Rooble cadaanteedii iyo waxa dhan xataa waa keensan karaa imtixaan abu Sacuudi sabtidii ayaa imtixaankii waxa uu bilowday تارمك المثل امتحان كي تارمك أيو قلي سيد عادة إنه أهان جرتي ويل كاس صباح دي أرورته هراء مارته واسديارين جرني أنا جي أسقبه صباح دي لبي ترونك سعوك سو دمي جري مارتي مهردة وإيه حاقي جري وإيه مارته هاجا جنجري كدبنا وإيه ما جري مركو أسقي قبل يسول لبستو يعني السورة عجني مهردة أيا مارتي مر عن فريسين جري أنا جا مارتي ماشي فرين جري وكشقين جري isagan in madrasada ayuu aadi jiray madrasada markuu aado 7 saac oo kale markuu ka yimaado maartay suuliga gali jiray oo qabaysan jiray salaada duhurka iska bixin jiray kadibna uu qadeyn jiray anu iimaan jiray 8 saac ama 8 saac ayuu iimaan jiray 8 saac markuu yimaado hadda aniga hal saac iyo bar maartay fadhi ilaa 8 saac iyo fadhiyaan ahay waan daalanahay isaga ay bedeli jiray 8 saac marka aniga guriga iimaan jiray anaga waan qabaysan jiray maartay alxamdulillah salaadan iska bixin jiray waan qadeyn jiray wax yaran maartay siixan jiray casarkii oo kale soo kici jiray maartay waan weesaysan jiray salaad casar markaan iska bixiyo yaan hadana dib ugu laaban jiray anigoo marka asaga u fiirnayo waxaan dhihi jiray iska laabo aabo aad maartay guriga imaan jiray wax yaro siixan jiray maqribiis oo casharkiis u aqriyo xilligaas markaan aniga tagay ilaa iyo saacadaha maartay sagaalkii barkii ama 3 saac bar sida dadka Soomaalida midba u yaqaanaan ayaan ku gaari jiray 3 saac bar hadii la gaaro waa iska xiri jiray alxamdulillah gabadhan alxamdulillah iyadan waxay ahayd caanaha ayay maartay mahradeeda horteeda ayay caanaha ku gadi jirtay si ilmaha caanahooda aan ugu soo dhaxsano iyadan xiliyada markii iskoolka laga soo daayo albilaad ayay dhigin jirtay markii madrasada laga soo daayo ay iyadana way qabaysan jirtay salaad doorkeed ku jirtay way qadeyn jirtay markay qadeysay 8 saac oo kale ama 8 saac bar oo kale ayay iimaan jirtay markay timaado alaabta ayay dhaqi jirtay caagidii oo maartay caanaha lagu doonayay waxaas adiga 9 saac iyo bar oo kale ayay meesha ka tagi jirtay caanihi raadin jirtay 10 saac oo kale ay caanaha keeni jirtay way xiri jirtay ilaa iyo maqribihii gabar kale jirto iyadana maartay alxamdulillah oo iyadana hadda ka baxday dugsiga sare taas marka iyadana soo bedeli jirtay oo xaabo Umar Xaaji idan loo ilaa ay habeen 2 saac iyada samartay joogi jirtay marka sidaas ayaan isku bedeli jirnay oo maartay waxaan ahayn dad oo maartay igu caawinay ahaayeen maartay ilmaha inta badan waxay ahaayeen dad naafi ahaayeen ilmay in yara maartay alxamdulillah ilaahay ii badbaadiyo oo dad lixaadkooda taam ilaahay iga dhigay marka dadkii lixaadkii taamka ilaahay ka dhigay ay kamid ahaayeen labadan hadda oo maartay oo meesha ku geeriyootay oo Bashiir Umar Xaaji Maxamed iyo maartay Maryam Umar Xaaji Maxamed sabradoodana waa haya labadoodii meesha qaraxi ayaa haleelay labadoodii raqdoodii iyo ruuxdoodiina waa laana waxa way meeshii aan fadhiyay bisha cas iyo maartay safari inta u dhaxay ayaa gaariga isku baaqimay oo qarax ku sameeyay marka raqdoodii iyo ruuxdoodii ayaa la waayay gaariga qaraxi ayaa u dhawaa aad ugu dhawaayeen macnaha albaab darbigii bisha cas ayaaba dumay hadda waa iska garan kartaa marka darbigii meeshii uu ka dumay maartay dukaan yaro meesha ku yaalo sanduuqada yani in maartay hadii Ilaahay ku roon yahay oo meesha qofkii taagnaa inuu nolol aan lagu xisaabin labadoodan ilmaha adasho ugu weynaa iyaga ugu roroona oo hadda dadkii tabarta gale oo aan
oo aan maciinayay oo shaqada ila qabanayay ayay ahaayeen. dabcan waa dhacdo xanuun badan meesha dad 300 qofood gaaraya wax ku noqday ama ku dhintay iyagana qaybay ka noqdeen. muxuu yahay marka hadda maxaad dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedba ka dalbanaysaa? alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan hadda meeshan u imid wax kale maaha maadaama gurmadka qaranka uu ku qoran yahay degmada xarunta qaranka ee gurmadka degdega uu yahay oo sida hadda aan ku arkayo maartay sawirka waxaan u imid in dhacdaas oo maartay oo aad iyo xanuunisay awal marra yani waa laba dhibaatada hore waa maartay alxamdulillah meeradeedii oo aan waayay dhaqaalihii yani oo meesha lacagtii aan ku shaqaysanayay iyo maartay oo meesha aan ku waayay awal marra ثانيا ilmahaygi oo qaaliga ahaa oo meesha aan ku waayay oo ugu saaciday shaqada ugu saaciday maadaama aan ilmihii aan meesha ku waayay taas ilmaha hadda wax soo celin karo ayaan jirino maartay kullu nafsan daa'iqatul mawt waa qof walba yani alxamdulillah waqtigu leeyahay oo ku dhimanayo ilmahaas hadda soo celinteeda idinkugu imaanin oo alxamdulillah rabbil caalamiin laakiin waxaan idinkugu mid maadaama dowladdii aad tihiin in arrintaas iyada ah iyadoo la ila qaybsanayo aniga maanta alxamdulillah ilmaha kuwa kale wax qabanaya ay ahayn ninkaas alxamdulillah oo naafada oo gaariga lagu riixayna aan ahay in oo dowladda ay wax igala qabato oo maartay saacidaad aan ka helo alxamdulillah rabbil caalamiin hadda waxaan meeshan u mid waxaan fariinta gaarsiinayaa madaxweynaha oo u horeeyo maxamed cabdullaahi farmaajo oo uu ku xigo ra'iisul wasaaraha cali khayre oo ku xigo in wax ay iga qabtaan